أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الفعل والقول والهدى والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا وأمور المسلمين كلها سهلا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. اللهم استخدمنا لدينك ولا تبدلنا واجعلنا للمتقين إماما. الله خالق هدونا أقلاده هل كان وحنك قد قلينا تفسير القرآن الكريم كلام ربنا المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كلامك إلهي منزلك معنيه ساء إن أن وحسقت المانو مبادئ علمك أشكالي هنا وحال قصوغاتي كتابك القواعد الأساسية للشريف محمد بن علوي المالكي. waxaan insha allahu tacaala marka ku bilaabaynaa suuradda ugu horeysa suuratu lfaatixa. waxaana rajaynaynaa ilaahay inuu nagu anfaco fahmi haaqiba ilaahay inuu noo siiyo si daqiiqa dhaqankiisana ilaahay uuna waafajiyo. waa kalaam wax la siman aan la arag, waana kalaam macnihiisa bidiqatin wax badan aan laga ogaa karin. in uun yaroo ilaahay nooga ifiyey ayaan insha allahu wadaagaynaa oon isu sheegaynaa. suuradda marka ugu horeysa oo aan jecelahay inaan ka bilowno waa suuratu lfaatixa. waxaa lagu magacaabaa faatixatu lkitaab, waxaa lagu magacaabaa umulqur'aan maadaama qur-aanka lagu furfurtay ama lagu bilaabay. asal oo kale ayay u tahay iyo meeshii uu ka kacay, sidaa awgeeda waxaa lagu magacaabaa asaas ama waxay xambaarsan tahay qur-aanku wixii uu waday oo dhan oo ilaahay ammaantiisa, ilaahay in lagu cibaadaysto amarkiisa nahyigiisa, ilaahay wacdi iyo waciidkiisa in la bayaaniyo, ama waxay xambaarsan tahay qur-aanka macaanidiisa guud ahaan oo xikamta nadariyada iyo axkaamta camaliyada oo ah dariiqa mustaqiimka in la qaado, maraatibta sucadada in la daalacdo, ashqiyada manaasishooda in la ogaado. suuratulkanzi waa la yidhaahdaa maxaa yeelay waxay ka soo degtay kanzi carshiga hoostiisa ahaaday. waafiye waa la yidhaahdaa, kaafiye waa la yidhaahdaa oo haddee salaada sixadeeda ayay ku filan tahay oofisaa oo ay uga filan tahay qur-aanka kale markii iyada la awoodo. shaafiye waa lagu magacaabaa, ashifa waa lagu magacaabaa oo nabigu calayhi salaatu wasalaam isagaa ku tilmaamay waa shifaaun min kulli daa'in uu yidhi. asabcu lmathaani waa lagu magacaabaa oo waa 7 aayadood itifaaqa culimada. umulqur'aan waa lagu magacaabaa, suuratu nuur waa la yidhaahdaa, alruqya waa la yidhaah, suuratu alxamdi waa la yidhaah, suuratu shukri waa la yidhaah, suuratu ducaa waa la yidhaah, suuratu tacliimi almas'ala waa la yidhaah. waxaa oo dhanna waxaa loo leeyahay waa inay xambaarsan tahay. suuratu lmunaajaad ayaa la yidhaahdaa, suuratu tafwiid ayaa la yidhaahdaa, suuratu faatixatu lqur'aan ayaa la yidhaahdaa, umulkitaab ayaa la yidhaahdaa, suuratu su-aal ayaa la yidhaahdaa, suuratu salaad ayaa la yidhaahdaa. xadiidka nabigu sida uu tilmaamahayay sala allahu calayhi wasalama, ilaahay wuxuu yidhi salaada addoonkayga iyo aniga ayaan noo qeybiyey, 2 qaybood ayaan ka dhigay, barkeed anigaa leh, barkeedna waxaa leh addoonkayga. addoonkaygu wuxuu leeyahay wuxuu su-aasho, addoonkaygu waxa uu leeyahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. ilaahay markaasuu leeyahay addoonkaygu waa i mahadiyey. addoonku wuxuu leeyahay alraxmaan alraxiim. ilaahay wuxuu leeyahay addoonkaygu waa uu i ammaanay. addoonku wuxuu leeyahay maaliki yowmiddiin. ilaahay wuxuu leeyahay waa uu i sharfay addoonkaygu. addoonku wuxuu leeyahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. ilaahay wuxuu leeyahay caza wajalla aayaddaani aniga iyo addoonka waa waxa noo dhexeeya. addoonkaygu wuxuu leeyahay wuxuu weydiisto, aniguna waxaan leeyahay inuu i caabudo.
أدونك وحولية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلهي وحولية أرمهاني أدونكيغا أي أسقنادين أدونكيغونا وحولية وحا أسؤاش إن شاء الله وأركي دونا إلهي صراطك مستقيم كإنو نقدوا الله بريهيا الضومدي أو النعمة طريقه إنه نقدوا الله دلبهيا كوا أو عراضي كوا أو نعي وددود إنه نجا إلى لي الله دلبهيا إلهي وحوليا أدون كيجو وحا شأيولي كو وايهي مركز سورة دا مقعيدة فرها بدن لأي إسكال هذا هاي أم الكتابة اللي يرهده هذا القرآن كمعاني دي سأردن أي حنبار سنتهي معاني دا القرآن كوردن سورة داس عدي كفهمي كرتا أما إلهي كفهم سيو أيوم با قرانيسا وحي حنبار سنتهي معاني دا القرآن كوردن oo waxay xambaarsan tahay afar nooc oo culumtii ah oo diinto dhan ay ku xiran tahay koow waa cilmiga caqiidooyinka ka hadla iyo macrifada ilaahay waxa ku xiran sifaadkiisa waana midka lagu ishaaray ilaahay hadalkiisa alxamdulilaahi rabbil caalamiin arraxmaan arraxiim uu yidhi iyo nubuwaadka oo la aqoonsado waana waxa loola jeedo hadalka ilaahay uu yidhi ancamta calayhim iyo aakhira oo la aqoonsado waana midda lagu ishaaray ilaahay qowlkiisa uu yidhi maaliki yowmiddiin cilmiga labaad oo xambaarsan tahay waa cilmul furuuc acdamkiisuna waa cibaadaadka waana midda loola jeedo hadalka ilaahay uu yidhi iyaaka nacbudu cibaadaadku waxay noqdaan xoolaha qayb ku tacalluqda sida zakada iyo xajka qaarkii qayb ka mid a cibaadaadkana jirka ayay ku tacalluqdaa oo laga qabtaa labaduba waxay u baahan yihiin arrimaha qofka uu ku noolaanayo oo mucaamalaad iyo nikaaxi ah waxaa lagama maarmaana sidoo kale xukuumaad furuucdii marka usuushan ayay ku fidsan tahay oo arrimahan ayay dalbahayaan qaybta saddexaad waa cilmu taxsiili lkamaalaat dhammaystiraanyaalka in la xasiliyo aqoonteeda waa cilmiga akhlaaqda waxaana ugu culus uu leeyahay gaarid ilaahay xadaradiisa la gaaro allahaasoo umuurta loola qasdo iyo qaadis dariiqa la qaado istiqaamada macnahaas ayuuna ilaahay ku ishaaray faatixada hadalkiisa markuu yidhi وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم قيبت أفراد وعلم القصص والأخبار علمك قصوينك إياك ورمد أمده هره يا قرونتي سوق دبتي كود أهل الجنة يا كود أهل النار يا وحي الحريرة أو قولوا وناكسن إن الله بلن قاضي جنة يا أبالوين كود حنحن إن لو جودي عقاب يحرمها لسه ساسا سورة الفاتحة علومتي ضمات أي إشارة سا سورة داس وسورة آدي مقوين وحي كسو دكتي مكة القرآن كوحو نقضاء مكي يا مدني يا ملحق مقالة مكة سورة كسو دقي نبي انتو جوغو وسكبحين او دعوة باللو جيدي يا مركي مقالة مكة وكبحوا مدينة وتقي سورة كسو دقي فاتحة مركة مكي كسو دكتي وتضبط آيات وبسملة ويكو جرتو أما هدي لقى ريبه بسملة أون آيات لقى تيرين آيات تضبط وهي نغنيسا صراط الذين إلى آخر الفاتحة وهي غير المغضوب إلى آخر كذا وهو نغنها يا آيات دي تضبط سورة مركب الله وجد ما دام معناها سيكون ليسنتها waxaa markaa la qadarahayaa hadalkaa quuluu ah si iyaaka nacbudu waxa ka horeeya ay u noqdaan waxa munaasib u ah waayahay hadalkaas waxa munaasib u ah si ay u noqdaan oo waxay munaasib ugu noqonaysaa inay noqoto addoommadu waxa ay yidhaahdeen iyaaka nacbudu iyo iyaaka nastaciin waxa ka horeeya si ay u waafaqsanaadaan oo waxa addoommadu ay ku hadleen ay u noqdaan quuluu waxaad tidhaahdaan addoommow bismillaahi ilaahay magiciisa ayaan suuraddan ku bilaabahayaa allahaasoo arraxmaani naxariista allahaasoo arraxiimi naxariista
الحمد أمان إيا وصفي وناكسن تلمان في عن أردن لله إلهي بأسقنا ذي وحوال بأو كمال إلهي بأسكاله الله سو رب العالمين خلائق ذا بقر كوذا الله سو الرحمن نحريسته الله سو الرحيم نحريسته الله سو الرحمن نحريسي سجود نحريسته الله سو الرحيم نحريسي سجارك نحريسته الله سو ملك يوم الدين أبال مرينتا مالين كذا أحد كإسكالة أبال مرينتا مالين كذا أحد كإسكالة إياك إلهي وأذيك أنبا نعبد عابدينا وإياك إلهي وأذيك أنبا نستعين ككالمة البينا اهدنا إله ونقد ونقهنوني الصراط طريقي المستقيم أتوسنا صراط الذين كوي طريقو ذا ألو نقد أنعمت عليهم دشو ذا آدو النعميسي وهداية آدو النعميسي غير المغضوب عليهم صراط غير المغضوب عليهم دشو ذا كوي لو عروضي غير كود وددو ذا ألو نقد ولا الضالين وصراط غير الضالين كوى اللمي غير كود وددو ذا ألو نقد بسم الله إلهي مقعيسى قولوا وحاتر هذان بسم الله إلهي مقعيسى أيان نبدأ كب الله بينا بالصورة الله سو الرحمن نحريسي سجود كن حريسته الله سو الرحيم نحريسي سجارك أكون حريسته مقعاس إلهي أن صورة كب الله بينا أنه بركة خير ودنك فلانينا مقع إلهي الله أو نحريسي سأدونك أو قال يا مسلم بكر حيسا كن حريسته نحريسي سجارك هو آخرنا ضدك متيسي ومؤمنين تأهون حريسته بسم الله الرحمن الرحيم شرائعي أولاً يدا حنبارسن أي ليهين وهيا لو حيت الماميسا إلهي ذاتيس أي صفات كيسا وأنا ورسحا كو معاني فربضن أي حنبارسن تهي أصوشي فروعدي أخلاقياتكي يا قصصكي انتبه way xambaarsantahay ay yiraahdeen marka ilaahay magaciisa hadee amal walba oo sharaacada ihtimaam ay siisay ama macna kulana waa la rabaa in lagu leeyimaado bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaahi ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabanaynaa allaha soo arrahmaani naxariisiisa guud naxariista allaha soo arrahiim naxariisiisa gaarka ah naxariista الحمد أمان والبقية الماء وناكسن أمان والبقية الماء وناكسن لله إلهي بو أسقنا ذي وحالة الماء هيا هو لقوا رمى هيا أمان جملة الحمد لله معناها أي حنبار سنتهي أمان إلهي إنه أسقنا تي أما إنه متيستي أما إنه قار لي هي معناها إن لقوا رمى أول الشيء oo la yiraahdo ilaahay waxaan sheegaynaa in amaan oo dhan asagu uu ku tilmaamay yahay ko allaha soo alhamdu amaan iyo tilmaan wanaagsan lillahi ilaahay buu u sugnaa tilmaan wanaagsan iyo oo dhan iyo amaan ilaahay baa iskale allaha soo rabbil caalamiina caalamiinta waa makhluuqaadka boqorkooda ah wax alla waxa asaga ka soo haray la yiraahdo caalam qaybtooda hadda uqalada lafdiga sida loo cabeeyo ha u muuqdo laakiin wax alla wixii ilaahay ka soo haray isaga iskale allaha soo rabbil caalamiina caalamiinta boqorkooda khalaa'iqda ahadka iskale ah jinni iyo insi iyo malaa'ig iyo daabado iyo غير wax walba ilaahay isaga iskale waxaas qayb walba kamidana waxa la yiraahdaa caalam sababtoo ah waxay astaan iyo calaamad u yihiin ilaahay wax walba makhluuqa kamidii jirid iyo jirid la'aan ay u dhaxeeyeen in ay jiraan waxay astaan u tahay cidii jirsiiday sidaas caalam loo leeyahay wax walba ilaahay ka soo haray waa tusiye ama waa ifiye ama waa astaan allaha soo arrahmaani naxariisiisa guud naxariista allaha soo arrahiim naxariisiisa gaarka ah naxariista
الله سو مالك يوم الدين أبا المرنت مالين كذا إسكاله هذا الرحمة معناه هذا إلهي مركي الله في ريو ما أهل لا بدلوع يوحي لا بدلوع يوحي الله تلقى له وحلو لجدا لازم كأوها إحسان يتفضل أيو إلهي إسكاليه هي الدون كمركي اللي يرى هذا قال يا إسلام بكرد حيدا آخر مركي اللي يرى هذا نجاركو أضمدي سفيع في عن الله سو مالك يوم الدين أبا المرنت مالك كذا إسكاله مالك أبا المرنت ومالك قيامه مالك الضم والبوحي وكسبضي لقى أبالين هيو ولا مرين هيو مالك كاس وحا إسكاله وإلهي وملكية بوحدة إذن كلاته هويرات إيش شيئين ومالك قيامها وحقار مالك فرت الله في غي هذا مالك ملكية عد شيئانيسا مقالهان حتى مجرته إلهي أنا هين واتي إلهي أولها لمن الملك اليوم يا إسكاله ما أنت بغرتوية ضدك بغران هذه جرى آوية ما أنت يا بغرتوية إسكاله إسلا أسا إسو جوابها يو لله الواحد القهار يسو جوابها يا هذه الدنيا وحاجر ملكي ظاهري بغرتوية لا شيغان هيو مقالهان dad badan ay iskale sida boqorada ama laakiin nafsul amarka iyo dhabta markii la yiraahdo mar kastaba ilaahay un baa milkiyad iskale adduun iyo aakhirada laakiin aakhira xitaa sheegad ma jirahayo ilaahay un baa iskale boqortooyada adduunka laakiin sheegada jiro dad un baa arra inay u taliyaan ama madaxiin isu yaqaan loona yaqaana الله سو مالك يوم الدين أبا المرنت مالين كذا الله إسكاله إياك أوصافت أمرك إلهي لصوت حي أو لصوت شيء إلهي أمانت إن إسكاليه هي أيا مركا وحلو سو قدبي إلهي عبادة أصدقون إن إسكاليه الله صفاتك كمال كله كليجي إنه عبادة مدنية هي كالماذا نبتان أصدق إسكاليه هي وهذا مركي وشيء أحد كوهبون إلا أمانه ونكسي في صفات واوين أو قصوا عني هاي وحيابها كلا تردن أيام مركا إلهي وحال ولا خضابي إياك نعبد مع أنه نوحي هاي الله حال كيسو يهي سيدا أنصو شاقناي إله أديك أيام كل لغن رارعنينا أو أنكود دلوبينا هو الضوما أنكون هاي أديك أيام نكالمك ويديسانينا waxaa sida loo yeelay arrinkaasi inuu noqdo ilaahay howlaha inuu gaar ku yahay aad in loo tusiyo iyo sidoo kaleeto in la markaa laga gudbo waxa la yiraahdaa burhaanka ama daliil ilaahay in loo sii maro loona gudbo markaa muuqaalaysi iyo intiqaal qaybadii laga guuro oo loo guuro shuhuud oo markaa sifaadka allihii lagu yaqaanay wuxuu noqday wax indhuhu ay qabanayaan oo kale ama shaygii aqliga lagu dareemayo wuxuu noqday wax indhaha la saaray oo kaleeto markaasa hawshii dhameed laga dhigay markaa xuduur oo lala khidaabay kalaamka bilowgiisa waxaa lagu dhisay dadka ahlu cirfaanka bilowgoodu waxa uu yahay oo ah xus iyo tafakkur iyo ta'ammul asmaada ilaahay lagu fikiro lagu xuso iyo nicamtiisa oo la fiiriyo يا صناعي سأولود اللي شدوا إلهي أودي سوين يا سلطنة عقلي كتم بدن كذب وحا أصوات بعد جاي أرنتو وحا أي كدن بين يسامع كدن بين حال كنا غنا هي أوام حي وأن يخوض لجة الوصول ويصير من أهل المشاهدة إنه قوسه بدوين تجاريسته أركيد ضد كذا أنا وكم من نقضه مركا إلهي عندها وحصاري وكلا ونقضه قلبي سأكو عمران هيو إلهي أيو مركا قفكي الله الله يا سيأفك أفه توسة إلهي ونقم ديال كوة جاره مقام كنوع عاسى وحل إلى السماع بالأثر أنكم مارمين إياك إلهي وأديك أنكو صوت الماني أو صفات كاسواوين أنكو صوت الماني أديك كلئة يا نعبدو أنكو أدو اللوبينا أنكتلي لينا وأمر كيسا أنقاذنا نهي كيسا أنكارينا وإياك إلهي أديك أنبا نستعين كالمة دلبينا أديك أيان كالمة كاربنا إلهي وإنادنا كالميسو نقعان قبطو أمورهن يوحان أباهن هاي مادام أود بوحد أديك الله هاي أديك أنكو قوني يلينا إنكو عابدنو
tawxiidkaaga iyo hayr adiga ayaana kaa dalbaynaa kaalmo cibaadadaada iyo umuuraheena kalena loo kugu kaalmeeyo ihdinaa ilaahow nagu duu assiraada dariiqa ilaahow nagu duu siraadkaasoo almustaqiima ee toosan ilaahayow dhabbaha toosan ood raadiga ka tahay ilaahow dariiqaas nagu duu anaa ilaahayow waxaad noo kordhisaa dariiqaa ku toosnaantiisa oo waxaad ilaahow noo daa'imisaa inaan ahaano waddadaas kuwa ku toosan haddee macnaha la rabo waa saas haddii kale annagu waan hanuunno hadda nebi maxamed ayaan ku hanuunnay calayhi salaatu wasalaam faatixadan markaan akhrinayno hidaayada nooga horreysay waxaan dalbayno waa daa'imin iyo inna loo daayo wuxuu yidhi ihdinaa ilaahow nagu duu assiraada dariiqii nagu duu almustaqiima ee toosnaa ilaahow nagu duu dariiqii toosnaa waa dariiqii toosnaa marka waa kee siraada aladiina kuwii dariiqooda ilaahow nagu duu ilaahow kuwii dariiqooda nagu duu kow ancamta calayhim dushooda aada u nicmaysay siraadka mustaqiimkaa waa addoommadii naga horreeyey oo fiicfiicnaa waddadii iyo dhabbihii aad ku duugday oo ay natiijo iyo sharaf ku gaareen ilaahow dariiqaas nagu duu oo nagu hanuuni oo hadalkan waxaa lagu xoojinahayaa hadalkii horeeto siraadkii mustaqiimka ahaa iyo siraadka kuwa loo nicmeeya waa isku mid oo siraadka muslimiintu waa midka istiqaamada looga markhaati yahay markaasaa waxaa lagu sii xoojiyey siraadka mustaqiimka ah oo muslimiintu inuu yahay dadkii hore oo fiicfiicnaa midkii ay mareen oy ku dangaareen haddee nicamta ilaahay lama koobi karo sida ilaahayba uu tilmaamay laakiin jinsi ahaan laba qaybood ayay ku kooban tahay oo nicmo adduun iyo nicmo aakhiro labadaas unbay noqotaa kuwa marka loo nicmeeyana waa kuwa qur-aanku uu fasiray suuratu nisaa ilaahay uu ku yidhi ulaa'ika fa ulaa'ika maca aladiina ancama allaahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa wasaalixiin waa afartaas qolo kuwa loo nicmeeyey ambiyada ilaahay addoommada darajada xigta oo darajatu sidiiqiya ku tilmaaman addoommada diinka ilaahay naftooda u huray iyo addoommada wixii lagu lahaa ku dadaalay oo sameeyey waa afartaas qolo kuwa loo nicmeeyey marka waxa ay leeyihiin dadkaasi ilaahow waxaad nagu duudaa dariiqa mustaqiimka oo hidaayada nabigaaga aada nagu siiday noo daa'imi kow siraadka mustaqiimka marka waa kuwii siraadkooda ilaahow aada u nicmayso hidaaye horteen aada ugu nicmaysay kow hayri lmaqduubi calayhim siraada hayri lmaqduubi calayhim dushooda kuwa loo carooday hayrkood dariiqooda allow nagu hanuuni kuwa dushooda loo carooday waa gaalada qayb ka mid a sida nabigu xadiidku ku fasiray waa yahuud oo caradaadu ay ku dhacday ilaahow yahuud kuwa aan ahayn waa addoommadii lasoo sheegay dariiqooda ilaahow nagu hanuuni waladaalliina wasiraada hayri daalliina kuwa lumay hayrkood waddadooda allow nagu duu kuwa lumay nabigu isagaa fasiray wuxuu ku fasiray nasaara ama kirishtanka iyo yahuuddu labaduba lafcad ayay toobin ku hayaan oo haddee diintii ambiyadooda loogu soo dhiibay way bedeleen way dooriyeen sida ay doonaan ay ka yeeleen ilal aanana waa tibtaasoo hadba ayaan markii la joogo waa la fadhiistaa markaasaa wax laga jaraa ama wax lagu daraa taayada ayada lama taabto ilaahay baa ballan qaaday inaan la taabo karin nimankaa marka diimahoodii ku cayaaray oo dooriyoo bedelay oo diimahooda hadda waxaa ka mid ahaa nabiga aakhiru zamaan soo bixi doona wakhtiga uu soo bixi doono dadka uu ka soo bixi doono deegaanka uu ka soo bixi doono midabkiisa muuqaalkiisa waxaasoo dhan waa ay tireen wax kaley ku bedeleen kuwaas marka carada ilaahay ay ku dhacday ilaahow kuwaas kuwa aan ahayn jidkooda nagu hanuuni siraada hayri lmaqduubi calayhim dushooda kuwa loo carooday hayrkood waddadooda allow nagu duu waladaalliina wasiraada hayri daalliina kuwa lunsan hayrkood waddadooda allow nagu hanuuni kuwa lunsan waayo waa nasaaro sida lagu fasiray kuwa loo caroodana waa yahuud suuratu alfaatixa bismi illaahi ilaahay magaciisaan suuraddan ku aqrinahaya ama ku bilaabahaya allahaasoo arraxmaani naxariista allahaasoo arraxiimi naxariista alxamdu ammaan dhammaanteed iyo tilmaan fiican lilaahi ilaahay buu u sugnaaday
الله سو رب العالمين عالمين تبقر كودا الله سو الرحمن حديث جود حديث الله سو الرحيم حديث سجار كان حديث الله سو ملك يوم الدين أبا المرين مالك كذا بقر كإسكاله إياك إلهي وأديك بان نعبد عبدينا وإياك إله وأديك بان نستعين كالمد البينا اهدنا إله نجد الصراط طريقي المستقيم أتوسنا صراط الذين كوي طريق ذا ألو نجد أنعمت عليهم دشوا ذا أذن نعميس الضمدي في عنا وصالحين تها وكاهري وضد إلهي إنك جدوا واتا الله برها يا إنك تدعو عيسته صراط الذين كوي طريق ذا ألو نجد أنعمت عليهم دشوا ذا أذن نعميس غير المغضوب عليهم صراط غير المغضوب عليهم dushooda kuwii loo carooday غayrkood wadadooda allow nagu duw waladaalliina wasiraada hayridaalliina waladaalliina wasiraada hayridaalliina kuwa lumay غayrkood oo ah kuwaan lumin kuwa lumay غayrkood oo ah kuwaan lumin dariiqooda ilaahow nagu hanuuni waa addoomadii ilaahay u nicmeeyo afartii qolo ahayd والله سبحانه وتعالى أعلم.